السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalyaal waa idin salaamaya. Waa YouTube Fawz weeye dhamaantiin meelaad joogtaan baa idin salaamaya. Allah idin salaameeyo dunya aakhiraba. Alxamdulillah. Ilaah baa naga wanaagsan idinkana sidaa iyo si lamid ah ayaan Allah idinkaga baryahayaa walaalayaal meelaad joogtaan ba Ilaahay idinkiisa inaan isa soo bareydino waa wax meesha ku jira. dhammaantiin walaalayaal meelaad joogtaan ba Allah idin salaameeyo, Allah idin xafido, ha idin ammaaniyo. waa idin salaamayaa. Ilaahay inagoo dhan hayna nabadgeliyo meelaan joognaba insha Allah. adduunyo aakhiraba Allah inoo dambi dhaafo. adduunkana oo dambi dhaaf waa loo baahan yahay, aakhirana waa loo baahan yahay. dhammaantiin waxaan idin leeyahay Allah idin nabadgeliyo, ha idin ammaaniyo meelaad joogtaanba. waa YouTube Fawz weeye oona yaantaan kala baadnay dhammaanteen. Soomaali Maxamed meelaad joogtaanba walaalahayga aan jeclahay oo waa idin salaamayaa. salaanta ugu qaalisan adduunkaan idin salaamayaa. ilaahayna hayna nabadgeliyo, ina ku xafido meelaan joognaba. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ku soo badatay adduunka oo dhan ama ku soo badatay Soomaalida oo dhan. siiba gabdhaha Soomaaliyeed ku badatay ayaan rabaa inaan maanta halkan kala hadlo. dhammaantood anoon kala reebayn saqiir iyo kabiir, ama ha yaraadeen ama ha waaweynaadeen. waxaan rabaa inaan kala hadlo anigoo weli aana jecel oo aan marna idinka codsanayo inaad kaliibkaas gaarsiisaan gabdhaha Soomaaliyeed meelay joogaanba, inay wax weyn ay ka fahmi doonaan ama ay ka garan doonaan. waa u malaynaya haddii alla yiraahdo. dhammaantiin marka walaalayaal waxaan leeyahay inaad ku soo dhawaataan maanta kaliibkaygan oo u faa'iido badan ah gabdhaha Soomaaliyeed. faa'iidada ugu badan waxaa iskale gabdhaha walaalahay oo Soomaaliyeed, ama aniga aan walaalaha nahay, ama aan muxuu hayto anigu dhalay, ama anigu aan gabarahay, ama Soomaali oo dhan gabdhaheeda dhammaan waxay la tahay inay wax badan ay ka fahmi doonaan. dhammaan waad aragteen adduunka maanta walaalayaal tan ka taagan, dhibaatada ka taagan gaal iyo islaamba. ummadaas ilaahay abuurtay ama gaal ha ahaadeen ama muslim ha ahaadeen, maanta dhibaatada ka taagan waad aragteen. colaadii maantay waxay gaartay inay u kala saftaan laba jamhadood oo midba nooc tahay, inay u kala saftaan oo dhibaato ay maaragtaa ay halkaas haddaan hooyooyinkii nahay inay halkaa ina ka haysato, oo ay dhibaatadaasu ina ku soo wajahan tahay. tii aysan markaa haysanna waa ku soo wajahan tahay. waxay ugu soo wajahan tahay waxaa weeye gabdhaad dhashay, wiilal baad dhashay, ehel baad leedahay, walaal baad leedahay, gabar walaalahaad leedahay, adigu gabar baad tahay. waa waxa ilaahay subxaana wa tacaala horta inteeda badan laga magan galo. ilaahay hina ka xijaabo, hina ka nabadgeliyo. laakiin wax walbaba horumar bay waxay leeyihiin, in laga hortagay leedahay oo laga hortago. waxaad arkaysaa wax badan aad arkaysaa gabdho badan oo maaragtaa ka hadlaya YouTube-yada. anigu hadda waddan baan joogaa, oo waddankaan joogo hadda Carbeed aan joogo walaalayaal. waxyaalo badan oo sidaa inaga haddaynu Soomaalida gabdhaha Soomaaliyeed nahay ina haystaa, ayagana ay ku haystaan in meeshaan ayaad arkaysaa oo badan. anigu waxaan joogaa Burkiyeera. waxaa seembere ii yimaada gabdho Carbeed baa ii yimaada oo ka cabanaya guriga iyo reerka iyo ehelka iyo ninka qaba iyo walaalaheed wiilasha iyadu dhashay iyo walaal aabaheedii dhalay ka cabanaya ii yimaada. ilaahna waa igu ogyahay inaan been ilaahay u sheegaynin. marka jiradaas waa jiro ku badatay wadankii, adduunkii ku badatay. waddan ma ahan, adduunkii bay ku badatay, oo adduunkii ayay ku badatay. marka waxaan rabaa inaan bal ra'yigayga anigu aan ka hadlo oo
adinkuna aan ra'yiyadiina dhageysto aan ka dhageysto ilaahay idankiisa bidmillah oo waxaad iga soo tiraahdaan walaalayaal waxa weeye wadankan gabar baa shaqo helaysa iskuul bay soo dhiganaysaa intaasoo sano bay soo tacbaysaa iskuul bay soo dhiganaysaa jaamacad bay soo dhiganaysaa waa soo tacbaysaa maalintii la guursado waxaa la isku qabsanayaa raatibkeeda iyadoo ay lahayd raatibkeedii baa la isku qabsanayaa waxay noqonaysaa raatibkeedii in gabadha raatibkeedii uu ama aabaheedu yiraahdo markii maxkamadda la geeyo gabadha ninkii lagu meherinayo inuu yiraahdo raatibkan anaa iskale bangigaaygana ku soo dhacaysa cid igala hadli kartaana male odagii mid dhifa baa ilaahay ka baqay oo faraha ka qaaday oo yiri waxa iga siisaan ku leeyahay hadii alla yiraahdo ninkii baa hadda u soo dhiganaya ninkii baa wuxuu dhahayaa waa inay bangigayga ku soo dhacdaa haddii kale waa kala tagaynaa markay dhowr caruur yar markii horena walaalkeed iyo aabaheed baa ku haystay markii dambe oo ay guursatana ninkii baa ku qabsaday waxa laga yaabaa gabadhaas inay maanta oo shaqaynayso oo caruur u taaganto iskuul dhigayso oo ku tacabtay oo nafta ka dhacday ama dhakhtar tahay ama waxun tahay waxba u qaban mayso lacagta ninka qaadanaya ama aabaheed baa qaadanaya ama walaalkeed baa qaadanaya halkaas ay ku dhibantaa waa mid ugu weyn oo dhibaatada adduunka ka jirta waa laga soo gudbay waxaad u malaysaa gabadha markuu ninka guriga keenay inuu keensaday qadaamad uu ka keensaday Filibiin ixtiraam kuma haysato wax ixtiraam la yiraahdo kuma haysato hadda dadkoo dhan isku mid ma ahane waa kuwa intooda badan markii boqolkii 2 ama hal laga reebo inteeda kala weeyay ixtiraam kuma haysato wanaag kuma haysato waxa laga yaabaa inta guriga ku xiran inuu asagu damashaad tago oo xoolo qalo oo asaga iyo niman kale ay muxuu hayto ay kireystaaneen meel muxuu hayto istiraaxa kireystaan ay ku maqan yihiin ayadana ay guriga ku xirantay iyada caruurtii dulmiga jira ma ahan inuu ka jiro meel kaliya inuu ka jiro adduunka oo dhan buu ka jiraa dhulkan carabta taasaa ka jirta walaalayaal markaan idin soo gaagaabiyo dhulkan carabta taasaa ka jirta karaamo iyo sharaf iyo maamuus intooda badan kuma lahan waa midda lacagteeda loo xaadirayo waa midda sidii muxuu hayto shaqaalihii guriga muxuu hayto waxay ku joogtaa ilaahay iyo waxa og baan ku iyada og dhibaatada ay ku joogto dulliin bay ku joogtaa mid baa shalay baa mid waxay igu leedahay walaashay ninkii baa intuu qaatay wuxuu ka duubay gurigii ilmo yar oo dhar ay u dhaqaysan dharkiisa oo halkaan oo kale bahal kuma ay goran oo ma ay dhigan buu sawray intuu dhulka ku daadiyay wuxuu sawray caruurtiiba wiil jiran oo awalba kilika jiranaayo saradaan ka qabay buu intuu dilay ilmuhu soo hadii ilmo yar oo jiran oo 3 sano 4 sano jira hadii la dilo oo awalba jiranaa dhulku ku dhacaya ayuu sawray bal day sidoo egyahay bal gurigan day sidoo egyahay iyadii buu ceeb u raadinaya ay qadma waa inuu naagta ceeb u raadi xataa haduu isagu ceeb leeyahay ilaahan ku dhaariyo waa laga soo tagay wadamada gaalada anigu ma arag tagin laakiin YouTube-ka ka fiirsadaa gabdha yar oo ilmo yar waxay dhaheen xuquuqul insaan baan naqaanaa xuquuqul insaanka kuwa gabdhaha yarka inta la uureeyo ilmaha calooshooda lagu soo jarjaraya xuquuqul insaanku midka dadka markay hal bil kiradii iska bixin waayaan laga dhigayo homeless ko shaaric ay seexanayaan ay ku dhibaataysan yihiin ba حقيه حقوق الإنسان كاسو جوجا إلهان ذي كداري حقوق الإنسان حقوق الإنسان با كصوتك مسلم مدي أو مسلم ضدكو وحوي مسلم بانه مثل محمد ضد مسلم عن هاي إلهي يقان وحنا هاي محاولة ضد دين كل شيء ودين كل شيء بان هاي ومسلمة waxaan ka gabdhaha muslimnimadii baan ka baxnay waxa ka saaray wadaadada ka koow ah intooda badan sababtay wadaadadu inay xaq ka hadlaan weey wadaadadu dantooda intooda badan ka hadlaan
dantooda ayay ka hadlaan naagtu ninka lagu hawaa inay u dhaqdaa taxti rajulkeeda taxti qadaamkeeda ku jirtaa jannadu waxay ku jirtaa muxuu hayto jannada taxtiga rajulkeeda waxay ku jirtaa rajulka lugihiisa ku jirtaa ninka lugihiisa ku jirtaa maxay tan ninka waa in baar ay u noqotaa gabadhu waa inay ninka diinta tiri diinta inta waa ognahay diinta tiri laakiin diintu maxay ka tiri nin muxuu ahay caruur yar loo dhalay oo naagtii ay kala tageen oo caruurtii aan beel bixinayn oo wuxuu bixinayaa jirin oo muxuu ahay gabadha ay ilmihii la silcayso oo ay la dhibaataysan tahay ama baadiyo ay ku haysato ku dhibaataysan tahay ama beledba mas-uuliyaddii asagu lahaa aawe midba 4 naagood guursanaya shilina kama dhaco biilkii tii kale ma haysato muu xaraam hada taas diintu maxay ka tiri sheekhyar maxay uga hadli waayeen oo dhii waayeen diintu ma ay dhiin nina waxba haysan 4 naagood ha guursado maxay dhii waayeen waad arkaysaa mid 4 naagood qabo aan shilintii kuwii kale aan maanta biyo cabinin aye diintu wax walbay ka hadashaa diintu ma ay dhiin muxuu hayto gabadha xorriyad qowlkeeda ama muxuu hayto nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam caasha maalintii dagaalka maka caasha tira muxuu hayto markii la yirgali maysaaneen xiirta oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xiiro oo ha kugu daydaan asxaabtu gabar bay ahayd wixii dagaalkaas dhan joojisay gabar bay ahayd maxaad u sheegi weydeen oo u dhii weydeen war gabdhuhu qiimay leeyihiin oo waxa weeye ragga inay la qiimo yihiin maahana kama qiimo yara qof walba 9 bilood buu ku dhashay gabdhuhu diinta waa karaamaysay oo waxay ka dhigtay meel aan ragga aysan joojin bay joojisay say sababtay tahay hooyadu waxaa la yiri thumma ummak baa la yiri aabahana hal mar baa la yiri haye caruurtayda sii buu leeyahay caruurtaydan qaadanaya haye gabadhii muxuu hayto aan ehelkii ka tagtay oo aan ehelkii marakan dabeecad garanayno oo 20 sano ama 30 sano ama 40 sano ama la joogtay oo ilmaha la korisay oo lan soo noolayd oo ilmaha iyadu dhashay ayuu xulay caruurtayda isii ama muxuu hayto ilaahu mu 5 sano qabo oo ay 3 ama 4 caruur u leeyahay ayada aaway karaamadeeda aaway wanaageeda aaway hooyanimadeeda aaway sharafteedii aaway dad baa soo koriyo dhaka baa lagu soo siiyay reerkiina baad la soo guurto reerkiina baad la soo agdagtay haye reerkii loola yimid ceeb ma lahan ha loola yimaado ama gabadhu ama ninka la dega reerka ama gabadha ninka la dega wax dhiba ma lahan la degitaanka labada reer mid uu la dego dhib ma lahan ceeb ma aha laakiin waxa ceeb ah inaan aniguna amiirahay gabadhuna ay bisatahay may gabadhuna waa amiirad weeye ilaaha baa ka dhigay adigu kama qaadi kartid waxa weeye qof walba ilaahay subxaanahu wa ta'ala anigu hooyaanay caruur baan leeyahay nin baa qaba alxamdulillah wa shukru lillah ilaahay baa mahad iskale waxa weeye wax dhibaato igama haystaan laakiin waxaan arkayaa gabdho walaalahay oo dhiban baan arkayaa kuwa nimanka calaasha anigoo diinta uga baxay baan arkayaa kuwa diintaanu ka baxayna calaasha nin dhibaatada uu noo geystay baan uga baxaynaa nin anagu waa dhalnay anagu hooyaanay ninkaanaan dhalnay wiilkaan dhalnay aabaha laftigiisaan dhalnay oo anagana dhalay waxa weeye anaga hooyaanay waaba ka afdalsanaha aabaha kan ilaahay baaba naga afdalay subxaana qaadirahu 3 goorna yiri umma na yiri haye wiilkaan dhalnay qiimo labadii sababtay tahay wuxuu arkayaa aabihii oo aan hooyada qiimeeyeen buu arkayaa markaas waxa weeye ilmihii wuxuu ku korayaa hooyadii inuu yiraahdo sida hadda meeshaan aan joogo أدخل بيت بليه وأمي ذي سو كبيرة 70 سنة 80 سنة جرته ويل يرى أيه وهبا أدخل بيت داي ولا لي المركة إلهي سبحانه إنه دم بالدافانة إنه